barnaamijka waxaa idinla socodsiin doona halkana idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Royal Saxane Ismaaciil waxaan ku soo qaadanaa alaab waxyaabaha ugu la yaabka badan ee ka dhaca dunida isla markaasina waxaan u soo xulnaa daawadayaasha Kismaayo Cable TV qodobo aan isleenahay waxa ay ka qancin doonaan daawadayaasha rabitaankooda isla markaasina waa ay ka heli doonaan haddaba daawadayaal maanta waxaan idin soo xulay 10 qodob oo aad iyo aad aan filayo in ay idin xiiso gelin doonaan 10kaasi qodob ayaa waxa ay noqonayaan qodobo taxana ah oo isku xiga isla markaasina uu macnahoodu yahay 10kii waxyaabood ee ugu mucjisada badnaa ee ka soo daacirka sida roobka qodobka tobnaad ayaa waxa uu noqonayaa jalaato soo daaday sida roobkii sanadku markuu ahaa 1967 ayaa waxaa ka soo daacay cirka wadanka Scotland roobab wata waxaad moodo jalaatiin taasi oo lagu wareeray isla markaasina ayba wada fahmi waayeen culimada wadankaasi sagaal ayaa iyaduna waxa qodobka sagaalaad ayaa asaguna waxa uu noqonayaa roobab wata kalluumo iyo rahyo oo samada sare ka soo daay sanadku markuu ahaa 1981 ayaa magaalo lagu magacaabo Nadalia oo ku taala wadanka Greega waxa ka soo daatay hawada magaaladaas malay yar iyo waliba rahyaal fara badan kuwaasi oo markii baaritaan dheer kadib ay sameeyeen culimada wadankaasi ay ogaatay in ay sababeen qabiilo waaweyn oo socday in ay ka dambeeyeen qaaditaanka malayga iyo rahaasi oo ay ka soo xambaareen goobihii uu deganaa xayawaankaasi 8 baraf shabaha kalarka xabxabka ama qaraha oo soo da'ay sida roobka waxaa jira dhowr buurood oo dhaadheer kuwaasi oo ku yaala gobolka California ee wadanka Mareykanka buurahaasi ayaa waxaa qariyay baraf aad moodo bilaantiisa mid aad ugu eg xabxabka ama qaraha taasi oo culimada sayniska iyo waliba culimadu baaritaan dheer oo ay ku sameeyeen kadib ay wax fasirada ka soo saari waayeen qodobka 7 loodii soo daaday marka marayay xeebaha wadanka Ruushka oo laga lahaa wadanka Japan ayaa si dhaqso ah u dagay kadib markii ay xagga sare looga soo daadatay arintaasi oo ay baareen dawladda Ruushka ayaa waxa lagu ogaaday in diyaarad siday loo fara badan in ay diyaaradii soo daadisay loodii saareyd kadib culays badan oo ku yimid diyaaradii ayada oo maraysa hawada sare ee wadanka Ruushka qodobka 6 ayaa waxa uu noqonayaa lacagtii soo daaday sida roobka sanadku markuu ahaa 2017 ayaa qaybo kamid ah wadanka Jarmalka waxa xagga sare uga soo daay lacag malaayiin kun oo dollar dhan lacagtaasi oo ay ku wareereen culimada wadankaasi lana fahmi waayay cidda soo daadisay iyo waliba qaabka ay xagga sare uga timid qodobka shanaad ayaa waxa uu noqonayaa roobkii kalarka ahaa waa roob kalar ah sanadku markuu ahaa 2017 ayaa waxa ka soo daay samada wadanka Hindiya roob ama dhibco aad moodo in rinji kala duwan la soo mariyay kuwaasi oo la fahmi waayay lambar 4 roobkii caarooyinka watay sanadku markuu ahaa 2017 ayaa wadanka Argentine magaalooyin kamid ah waxa ka soo daay caarooyin kuwaasi oo markii hore ku fiday dhul gaaraya 1 cm balse markii dambe saaid u faafay lambarka 3 ayaa waxa uu asaguna noqonayaa ee mucjisooyinka hawada ka yimid ukumihii madmadooba ee soo daay sida roobkii jasiiradda lagu magacaabo Haiti ayaa waxa ku soo daay 4100 oo ukumood kuwaasi oo kaga yimid xagga sare ee cirka isla markaasina baaritaan iyo waliba cilmi baaris lagu sameeyay waxa lagu fahmi waayay macnaha iyo sababta ka dambaysa ukumahaasi iyo meeshay ka yimaadeen qodobka 2 ayaa asaguna waxa uu noqonayaa hilibkii soo daay sida roobka sanadku markuu ahaa 1967 ayaa waxa qaybo kamid ah wadanka Mareykanka waxa ka soo daay hilib taasi oo markii hore ay dadku u maleeyeen haado soo mantaqay balse markii dambe waxa soo batay hilibka cirka ka soo daadanaya taasina baaritaan dheer kadib iyo dadaalo fara badan oo ay sameeyeen dawladda Mareykanku saynis yahanadeeda iyo aqoon-yahanadeedu waa ay ku fashilmeen in ay ogaadaan arinta dhabta ah ee ka dambaysa hilibkaasi xagga